نبضاس وعنقها الله يحفظ الصوماليين ما شاء الله الحين كبرشة مسؤولين إمام قبل ما مسؤولين كواساسك كرئيسة الله يكرم لك عسى مسؤولين إمام كل حاجة ما هذا قر ما هذا كلام يقول والله الشيء أنت تقول حاجة تشوفني أمر ديان كان تشوفني أمر وطن كان تشوفني كلنا وين هلين المرض يفرحنا ولا كل حاجة كأركنا ما تكويسنا ما شاء الله saraakiisha ciidanka kumaandooska Danab iyo kuwa Jubbaland ayaa kulan wacyigelin la yeeshay shacabka ku dhaqan deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose iyagoo diiradda saarayay muhiimadda wada shaqeyneed ee shacabka iyo ciidamada si loo sugo amniga deegaanka. Kulankan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa qayb ka ah taliyaha guutada birjaha ee ciidanka Jubbaland gaashaanle sare Nuur Cabdi Maxamed Nuur Ilka Case iyo taliyaha ururka 162 ee kumaandooska Danab Caarif Hirre Salaad kuwaas oo bulshada kula dardaarmay inay kaalin muuqata ka qaataan sugidda nabadgelyada deegaanka. Taliyayaasha ayaa si cad u sheegay in nabadda aysan ahayn مسؤوليات gaar ah ee ciidamada kaliya saaran balse ay tahay waajibaad guud ee la wada leeyahay waxaana xusid mudan in wada shaqeynta shacabka iyo hay'adaha amniga ay muhiim u tahay ciribtirka kooxaha argagixisada ee diidan xasiloonida deegaanka. saraakiisha waxay shacabka Buule Xaaji si gaar ah ugu booriyeen inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana ay si degdeg ah u soo sheegaan cid kasta oo ka shaqeynaysa amni darada iyagoona balan qaaday inay gacan bir ah lagu qaban doono cid kasta oo ku lug yeelata falalka amni daro ee deegaanka. waa mid ka mid ah kelmadaha muhiimka ee sare u qaadaya wada shaqeynta bulshada iyo ciidamada si loo xaqiijiyo nabad waarta oo ka hana qaada guud ahaan deegaanada gobolka Jubbada Hoose. waxaan uga codsanayaa inaad la shaqeysaan ciidanka oo la shaqeysaan oo la shaqeysaan maaragtay maamulka oo la shaqeysaan idinka dantiina ku jirtaa haddii oo intii meel walba miino la geliyo markaad baxdo arig aad dahdo miino kugu qarxdo oo miino ku qarxdo xoolihii miino inaga leyso maxay faa'iido inoo tara wax inoo tarayso nabad baa naas lagu galaa nabad baa dadkan deeqdo nabad baa xalli geed baa lagu fuulaa haddii Buule Xaaji nabad laga dhigi waayo oo jaajuuska iyo nuxnuxuluhu iyo hadal xumid ay ku dhex jirto meel kale nabad ma noqonayso tana laga rabaa marka isaga nabad gudaheeda laga rabaa nabad baa deeqdo nabadda ka shaqeeya Buule Xaaji waxaan rabnaa inay horumar gaarto shabaab way ka quursatay mana soo noqonayso mana soo dhawaan doonto wixii inoo hare kale waxa waaye in guryaha doon la dayactiro iskuulada la hagaajiyo wada waxbarashada la hagaajiyo ceelashii wax walba la toosiyo caasimad noqoto lagu ganacsado lagu noolaado horumar lagu gaaro dadka ganacsatada oo kismaayo wax ka keensanaya siba gabdhaha qaalida ay nabad wadada ku soo maraan dadka si fiican meesha u imaadaan amni inay ahaataa la rabaa meesha amnigaas ayna deeqo aad u mahadsantihiin oo ka baxada bulshada degan marka bulsho aad iyo aad u sharaf leh oo u fiican oo rag iyo dumar ciidanka la shaqeeya oo aad iyo aad ana ugu bogay oo qiimo badan baa degan Buule Xaaji hadda ganaatee meel kastoo degan oo islaam degan yahay lagama waayo khanaas wax la yiraahdo ama waswaasiye ama shaydaan ama ma garanaysaa arkixiso ama ma taqaanaa si xun fikire ama si xun socde ama ma garanaysaa dadka wax soo u daba wareego dadka daba gura oo khariban lagama waayo ilaa nabigu munaafiq soo taxnaa وحلي أصحابه ومنافق ضد المسلم كساو دبقري وحلي أصحابه بالله إن دينته لو قراب صدق أو من قرنا سايك تابا يريرا وكل إنت الله رصوبحه دينته لو قراب حلي عاصي بالله خلق قرصون ولا يسوي سورة مترو لكن ضد كنا جبتي خوارج منهم أدب بقول إذا كنا حينا نولش إننا نشعل الله فرمك إننا ربنا أنت أسكري مثلا كل نفي يا أنت كل عوا عنتي يا أنت وحنا جزء قاري الرفاض يا أنت قول يا خراب يا نحن نقول wuxuu noogu dhacay dartiin weeyade inaan alqushash idin gumaysanin weeyade inaan ma garanaysaa shaydan idin gacanta u gelin weeyade inay xor gabdhuhu ganacsadaan weeyade raguna ma garanaysaa ilaahay sameeyay caawido weeyade ma garanaysaa horta yaa islaam yaa sagaalade waxa islaam ama gaal in la isweydiiyo waa muslimkii bay ku leeyihiin soo hadlaan waa islaam hadaa managa gaal aan shaqo ku duwanay diintan lagu dhalay goorma annagu gaalownay gaal maaniga ma ruux wareersan oo dadka ku jira oo tukanin oo ma garanaysaa badal xaarka soo soo gurahaya oo taahir baahina xafaayada qabsi ciyaalkii dad xafaayada qaban u tagnayde labiyo toban shala qurun man kala guraynayde ma dadka xafaayadaha qaba aan daahirka waahayna istiisay inba islaama masaninka daahirka ee qabaystay
ee waysa qabaan shanta waqti tukada ayaa gaala marka murtada war murtadiin manihin beenta la sheegayo idil bilcaanay ha ku hodmina waxa isaga hara aayartu walbay dantaadan ku sheegay ilaahay ku samaystay horta ka baq oo quraanka baro oo ninkaaga adeeco ka dambe oo walaalka iyo waalidka iyo aabaha ku xidhnow nin kale aysan kula hadlindee ninkaaga walaalka aabaha raggan kale dhixirdi ka dhaxda iimaan yeela gabaray shabaabta iyo hawta dhixirdiisa iska daay anaga ciidanka naga dhowrso qaab dumareed u soco dumar wadinka intaas ku waanaya horta raggiina ka dambeeya waragow u baneeyo waragow waxma ii sheegaa hadhow gabar heblaaya la dilay gabadhanadii baa kan lagu sameeyey ciidan baa kan sameeyey waa la kaxeeyey dana baa la tagtay meel ay mareen ma garanayno cali waxaas ma qori doonno dadka wanaagsan waxa jooga in daynayna ee cadowga naga dhex hadlaya dadka wanaagsan sharaftiisaan ku daynaynaa dee idinkaa ugu dayna waxaad wax ka shaqeeyay kanoo fiican oo iga shaqeey kanoo nabada kanoo dayn kastoo intaas ruuxu qalbi wanaagsan baad ka jira waxaad ku khasbantahay marka kaxulka fiicanna ku xurmaysadee Shirwa Cumar warbaahinta codka ciidamada qalabka sida magaalada Kismaayo.